Cusbitaalka Jubba oo ah cusbitaal cusub oo gaar loo leeyahay oo dhawaan laga hirgeliyay xaafadda Farjan waaxda dalxiiska ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu soo kordhiyay adeegyo cusub oo dhinaca caafimaadka ah taa oo bulshada ku nool deegaanada Jubbaland ay u qabeen baahi weyn. Dr. Xuseen Hiro oo ah aasaasaha xaruntan caafimaadka ahna dhakhtar qaabilsan cudurrada neerfaha ayaa marka hore iga warramay sida ay ku timid hirgelinta xaruntan caafimaad. wuxuu ahaa fikir waqti hore nagu igu dhashanaa aniga especially aniga waxaan ahaa ardadii ruushka ka bacdina waddanka Finland ka qaatay takhasuska neurology-ga ilaa iyo 20 sanana ku shaqeynayay. waxaan PhD-da ku qaatay Tampere University of Finland ku taala. waxaan ku takhasusay cudurkan neurology-ga ama neerfaha Soomaalidu u taqaano. neurology-ga wuxuu kala qaybsamaa daaweyntiisa dhinacyo kala duwan, qaybo kala duwan. waxyaabaha aniga igu dhaliyay inaan meeshan imaado waxay ahayd anoo Soomaaliya ka shaqeynaya ayaa mar walba waxa la soo diri jiray sawirro iyo WhatsApp iyo arrintaas maxaad ka leedahay. waxa sababtaas ay igu kaliftay inaan contribution yar geliyo magaaladii aan ku soo bartay wax ku bartay ama ku koray. Dr. Xuseen Hiro ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyay adeegyada dhinaca caafimaadka ay soo kordhiyeen khaasatan cudurrada ku dhaca neerfaha iyo waliba cudurrada ku dhaca maskaxda oo dadka ku nool magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee ku xeeranba ay ku adkeyd inay helaan ama horay ay u helaan dhakhaatiir ku takhasusay oo qaabilsan dhinaca neerfaha iyo maskaxda. cudurrada neerfaha waxa weeye ama stroke ha noqdo oo maskaxda xididadeeda ama waxa ha xiraan oo ama cholesterolka ama xinjir ha xirto stroke la dhaho ama ha suubiso dhigbax bleeding ah ama dhaawac soo gaaray oo maskaxda jug iyo soo gaartay ayada laftirkeeda way khusaysaa. sidoo kale cudurrada sida autoimmune system-ka oo kale MS disease-ka iyo polynephropathy-ka iyo cudurradaasito iyo sidoo kale cudurrada Parkinson's-ka qofka gargariirka socodka oo aad iyo aad magaalada Kismaayona aan ku arkay cilado fara badan oo noocaas oo kale ah iyo cudurka epilepsy-ga oo especially aniga marka aan dissertation-ka suubinayay cudurkaas aan ku suubiyay epilepsy qalalka. cudurrada neerfaha ku dhaca aad ay u ballaaran yihiin sida ku dhaca wadnaha oo kale ay ugu dhacaan sida uu qofka uga jirrado sanbabka oo kale uga jirrado ama uu uga jirrado xubnaha kale. marka khibrad aad u dheer baanan jaamacadda isbitaalka jaamacadda ee waddanka Finland waqti dheer ka shaqeynayay. Dr. Muxsin Cabdalla oo ah dhakhtar qaabilsan cudurrada carruurta ayaa isaguna ka hadlay adeegyada caafimaad ee dhinaca carruurta ee cusbitaalka Jubba Specialist Hospital uu u soo kordhiyay dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo. waxaan ku takhasusay ilmaha carruurta pediatrician xanuuno fara badan oo aan kala kulmay ilmaha carruurta ee magaalada Kismaayo khaasatan gobolka Jubbada Hoose inta ay ku fadhido. xanuuno fara badan oo kala duwan oo aanan ku arki jirin qurbaha ayaan inta ku arkay oo ilmaha carruurta aad u saameeyay. waxa u badnaado wax ku saabsan cerebral palsy wax la dhaha jiro oo ilmaha carruurta aan ku arkay intii ugu dambeysay oo qaabilsan dhinaca neerfaha. ilmaha cudurkaas ku dhaca inta ugu badanna maba sii noolaadaan